kusoo dhawaad muuqaal xiiso leh muuqaalkaani wuxuu ku saabsan yahay sidee Windows-ka computer-ka ama laptop-ka kugu jira la cusboonaysiiyaa haddii uu ka dhaco ama wax software kale isticmaalin muuqaalkan waxa halka dad badan oo ku dhibanay ama la raadi jiray qof u cusboonaysiiya marka Windows-ka isticmaalayaan shatigiisa uu dhaco dhicitaankaas oo ka dhigaya in laptop-ka ama computer-ka uu culays noqdo ama qaybo badan oo kamid ah ay shaqeey waayaan haddaba aan gudaha u galno ee la socod wanaagsan hadda channel ku cusub tahay subscribe leh fikirkaagana waa inoo dhiirigelin ee xagga hoose noogu reeb muuqaalkaana asxaabtaada la wadaag haddaba qaybta ugu horeysa ee shaashadaada computerka waxay ku muujin doontaa markasta in Windows-gaaga uu dhacsan yahay activate Windows haddaba aan qayb kale aadno ah my computer right click dheh kadibna properties ku dhuf oo ah qayb kale iyadana oo noo muujin doonta in Windows-gaaga uu u baahan yahay cusboonaysiin haddaba qaybtan saa u jeedid Windows is not activated ayaa dhexda ku qoran oo ah Windows-gaan inuu u baahan yahay cusboonaysiin haddaan qayb kale sii aadno oo midigta ku taal activate Windows ku dhufo iyadana waxay noo muujin doontaa qayb kale oo naga codsanaysa in computerkaani productkigiisi ama qaybta shatigiisa ay dhacay u baahan tahay ay dhacday oo u baahan tahay in la soo geliyo si hadda u jeedid wuxuu ka codsanayaa in productkigiisa computerkan ay soo geliso oo u dhacsan haddaba see lagu xalin doonaa ha iska xirno si loo ogaado halka aan uga tago kana iska xir haddaba soo kacsa browser computerka kuugu jira wuxuu noo keeni doonaa halkan soo socota halkan waxaa ku qoran code ama program oo muujin doona in computerkaaga in aan ku cusboonaysiino dooro isaga dhan right click dheh programkan waxaan soo dhigi doonaa qaybta hoose ha ka cabsanin right click dheh copy dheh kadibna meel kamid ah shaashadaada right click dheh kadibna waxaad doorataa notepad-ka fur oo double click ku sii kadibna dhig programkaaga oo paste ku dheh waa kana programkii aan soo qaadnay oo soo koobiyeyni kabacdi file save as si aan magac ugu bixino oo meel kamid ah shaashadeena aan dul saarno halkan waxaan ku qoraynaa magaca Windows 10 kadibna waxaan ka fikiraynaa muxuu noqon doonaa extensionkiisa si uu u noqdo program ka caaya haddaba programkaas waxaan u bixin doonaa ugu daba mari doonaa .cmd laakiin magaciisa waa Windows 10 kadibna waxaan ka fikiri doontaa xagee dhigay waxaad iska saartaa shaashadaada ama desktop-kaaga iska saar kadibna save as dheh iska soo xir programka wuxuu saarmi doonaa shaashadaada laakiin waxaan hubin doonaa halkan fur oo waxaa ku dhufatay security-ga computerkaaga halkaani saa u jeedid security-ga firewall-ka ama qaybahan oo dhan waa off oo on maahan haddii daarihin computerkaaga difaac samayn doonaan halkan tag virus and threat protection iyadana qayb ayaa jirta iyadana la soo dhigi doona off manage setting raadi meel ay ku qoranta manage setting ku dhufo halkan ayuu noo keeni doonaa real time protection ay ku qoran tahay saddexdan meelba waa inay off ahaadaan waxaan aadi doonaa meel kale oo iyadana ah notification oo muujinaysa difaaca computerkaaga ku dhufo saddex meel ay leedahay iyadana saddexda meelba waa inaad iyagana off asset oo is on ahayn kadib ayaa waxaan iska soo xir waxaan ku soo laaban doonaa programkeeni aan u soo laaban doonaa right click ku dheh oo waxaad tiraa run as administrator kadibna wuxuu noo keeni doonaa shaashad madow oo ay ku qoran tahay qaybaha versions ama qaybaha kala duwan ee Windows 10 uu ka kooban yahay haddaba saa u jeedid qaybahan waa qaybihi oo ka koobnaa Windows 10 programka aan soo qaadnay oo kicisana dhammaantoodba waa uu cusboonaysiinaya kaliya waxaa shardiya oo qaybta security-ga oo data aan soo marnay inay dhammaantood off ka yihiin oo computerkaaga wax difaac aysan u sameynin si programkan uu san hadda u jeedo oo kugu soo kaco kadib intaan markaa gasho wuxuu kuu soo saari doonaa connection si wax internet ama server ku xirnay haddaba wuu dhameeyey wuxuu ku weydiin doonaa website-kayga ma soo booqanaysaa halkan waxaan iska dhihi doonaa no laakiin aan fiirino Windows-gii ma la cusboonaysiiyey haddaba meeshaas oo selection-ka saaran yahay sida kaaga muuqata waxaa ku qoran product activated successfully in haddaba Windows-gii si guul ah loo cusboonaysiiyey ayaad arkaysaa haddaba waxaan hubin doonaa meeshaan waxaa iska dhigi doontaa no haddaba waxaan hubin doonaa in Windows-gii oo la cusboonaysiiyey in kale haddaba saa u jeedid meeshaan waa meesha data ee shaashada ay ugu qoreed activate Windows haddana wax ku qoran ma leh oo computerka waa la cusboonaysiiyey haddaan tagnaa my computer oo aan right click dhahno kadibna aan properties dhahno
oo qaybta data ko aan fiirinayna hadda waxa ku qoran window is activated oo macnaheedu yahay window-gaani waa la cusboonaysiiyay hadda oo ma dhacsano haddaan tagna qaybtii kale oo janji productiga ku soo dhufano iyadana waxaan arkaynaa inuusan naga dalbanaynin wax productiga in la soo geliyo saa u jeedid qaybtan oo kale iska xir okay meeshan waxa ka jeedaa laga soo bilaabay activation ilaa qaybta ugu hooseysa dhexda qaybahaas oo dhan hadaa fiirisid wax uu ka codsanayo markaan ina product key ama qaybta shatiga ay soo geliso window lagu furihii lagu cusboonaysiinayo computerka ina soo geliso ma jirto window is activated ayuu ku soo muujiyay waana la cusboonaysiiyay computerkaaga oo hadda ma dhacsana kaliya iska xir haddaba waxaan rajaynayaa in programkan uu ku anfici doono daawashadaadana waad ku mahadsantahay